Bismillahir Rahmanir Rahim. Halkan waxaan u nimi Canab Aadan Faarax oo nin xanuunsanaya oo ciidda cuna oo aad u dhibaataysan haysata dhagxaanta cunaya ciidda cunaya marka ninkaasi aad buu tacabsan yahay marna calooshu feers kala dhacaya marka waa nin aad u dhibaataysan oo Canab Aadan Faarax baa ku arinta inanka dhashay yada gacanta ku haysa dad muxsiniina oo Salma Xaaji Axmed Xaaji Ibraahim ayaa ku sadaqadaysatay lacag $350 gudoomahoy Salma Axmed Xaaji Ibraahim waxaan horta u horeysinaya salaanta islaamka la isku salaaman salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu lacagta aad iyo aad u qiimaha badan waxaan ka gudoontay Maxamed Cabdillaahi diiriyaan ka gudoontay waana taa inta waxaan u dhaafayaa ilaahay waxaan kaaga bariyay waqtiga waxaan kaaga bariyay halkaad ka soo saartay mid ka badan oo ka khayr badan in ilaahay ku geliyo insha Allah bimillaahi kariin halkii hada ka cabanaysa haday xanuun tahay iyo haday awlaad tahay iyo haday si kala tahay waa in ilaahay ka iltira ilaahay dadka muslimiinta aba dhamaantoodba waan u ducaynaa meeshana waxaan ku fadhinaa dad muslimiin midba tira iyo midba rijoogaba dadka islaamkaanu ku fadhinaa marka waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala halkii aad ka cabanayso ka iltiro ilaahay waxaan ilaahay ku barinayaan ku nahay waa inaad saaqada ilaahay waasac kaaga dhigo caafimaadkana ilaahay ku ironayo adiga awlaadaada iyo wixii islaamaba waan u ducaynay adiga awlaadaada iyo gaalada ilaahay aad joogtaan idin sikhiro ummadiisaba ilaahay idin sikhiro ilaahay caafimaad aakhirana fil janna iftiinkana fil raaxa anigu waxaan iska ahay qof weynimanka wax shaqaan haya ma jirto meelan ku kooraf garaysanay ma jirto risq ilaahay yaan ku kooraf garaysanahay iyo muslimka laba yar agoona baa jira oo imika halkan aan ila joogin meel kale hooyadood ku hayso ninkaasay ka baqeen oo ay meel kale ku hayso oo yar oo midna 3 jir yahay midna 2 jir yahay oo ninkaas laba nin bay ahaayeen mootal qafla mar habcaaw intu soo hoyday subaxina aanu aragnay galinkii dambana isagoo meyd ilaahay baan raali kaga ahay ma ninkan baasay wax loo ooyo kaas waxa weeyeen geeri xalaal oo ilaahay baa ku shaqalay kana wax loo ooyaa kan waa nin aad iyo aad aan isugu tacabnay oo aad iyo aad isagoo yar oo kuri xoogla iyo ninka la helay imika waxa weeyaan muddo badan oo imika nin 3 jir weeyaan inta way isla rafaadin waa nin aan dadka kale waxba uma geysan naftiisa la hagarbiyo ninkaana waxa ugu xoog badan oo haysta laba xanuun baa haysta xanuunna waa xanuun jin oo ku raagay oo hantiyay oo dadka maqalkiisiiba imika ka haysta markii hore aragga iyo maqalkaba waa laga qabsan imika maqalka dadka labadaas uu faraagelinaya guuxiya gariirtoona maqli maayo gaari hadduu jiirayo maqli maayo kabalaanbu sida dhulka uu soconayo ugu ordaya muslimku way ka qabtaan gaariyada qaarba inta ka soo degan ka toqotoqeeya ilaahay islaamka uu sikhira imikana waxaan jecelahay islaamka mid halkan jooga iyo hadalkayguna aad uma qayliyo oo dadka aad u cawdana miyahay ilaahay baa loo cawdaaye muslimka ilaahay waa istikhira waxaan jecelahay haddaan cilaash waxiga soo bixiya aan helo inaan cilaash kaliya cilaash ninkaas u baahay wuxuu baahan yahay imika cilaash muddo badan ku jiro hadduu ugu yaryahay sanad ku jiro oo dawada neerfo weeyaan imika xanuunkiisa dhakhtar waa neerfe maaha maskax waa neerfahana lagu siiyo dawada xaggana cilaashka iyo dawooyinka cilaashka iyo quraanka uu kaga socdaa buu baahay marka nin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka hinjiya abayo noqon amina laga qosno noqon laha laakiin tacab badan looma gelin oo ma haysanana oo ma haynin insha Allah bimillaahi kariim waxaan idin rajaynayaa in ilaahay khayr iyo baraka ilaahay ha ku siiyo caafimaad qaba ilaahay ha ku siiyo saaqada waasac Allah kaaga dhigo awlaad khayr qabta Allah kaaga dhigo
wixii aad ka cabanaysa in bidix iyo midigba ilaahay xagaaga dhiibo ka soo saarteen in khayr iyo baraka ilaahay ku geliyo barakada rasuulka ilaahay ku geliyo ku daraya inta sida ama inaga aan isla hadlin noo soo xasuusateen inaydan noo ilaawin oo noo soo xasuusataan oo waliba ninkaasaan doonaya meel 150 haddaan raadiyo itaalmaha iyo cunto uma karin karo mana cunto uma karin karo uma geyn karo itaalmaha iyo meel 150 cunto le baan doonaya in la raadiyo inay iga soo bixisaan oo soo xasuusataan oo wixii kale gacalaha iyo wixii islaamnimo wuxuu geysanayaba aynan ilaawin iyo jecelahay sidaas baan ku soo gabagabaynayaa hadda maalin joogtaan maalin wanaagsan daaban joogtaan habeen wanaagsan Salma Xaaji Axmedna ilaahay ha barakeeyo jasaakallahu khayr ilaahay halkaad ka soo saartay wax roon ha kuugu bedelo kelmad salaana ayaa shaal oo la darisa islaanta ayaa ka idin salaamaysa عليكم ورحمة الله وبركاته سلمى حاج أحمد دماشي أو إن عذير وانكو سلام إياه نقول شاربان ونهاي إلهي سبحانه وتعالى وخير بدن بان آخرة يفتين كاغبر إياه لعقتنا يمكن وحلي مرخاتي كنقو ده إن شاء الله خير فر بدن بان آخرة يفتين كبكور رجيننا ده وحي لا تيمك أقول ده لصاصة وري ما لكن ده دتك وحي ده إسكسو محن كل هاي ده سلا أو مقشين ده وحي كلا محن كل هاي واحترى أنا بحصنا waa u sheegaysaan sida iyo salaam alaykum dumaashi oo in adeer khayr farafadan baan ku rajeynaa aakhirada iftiinkaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh